مجرحني وجهي بيلي مجاسي غريبة لك بقصدها كلنا أقول يبا أقول فلا مني مدود مجرحني وجهي بيلي مجاسي غريبة لك بقصدها كلنا أقول يبا أقول فلا مني مدود كل كذا وناري ولا تنوري حرمتك إلوهيو وانا قمت لغايرو ولونا كودت دينتو كاسيس شعبنا كل كذا وناري ولا تنوري حرمتك إلوهيو وانا قمت لغايرو ولونا كودت دينتو كاسيس شعبنا إني مغاكر بلديو تصغنين واقول أحضر وضطو شركة قبل جديسيو أراد وانكتونا صدق عنها أبتكين تسكرم صدق إني مغاكر بلديو تصغنين واقول meesha Qabiyoonis ay ku doorteen Maxamuud Cabdi Xasan waa ku wareejin markaysiin ush qabiilkii xalay MCA aad soo bixin waa ku wareejin markaysiin kureeyeen waa ku wareejin markaysiin Allahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mahad waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo annagu caafimaad qabno halkan isku keenay inaan xafladan aad u maslaxaysan aan iskugu imaano aan ku soo xulanayno ninka inoogu noolami lahaa MCA-ga Buurdheer doorashada soo socoto 2022 waxaan mahadnaqa labaad u celinayaa tolkayga oo kalsooni fiican i siiyay in ay ii dhiibaan ama ay ii soo xushaan inaan noqdo ninka ugu loolami lahaa kursiga MCA beesha reesha Qabiyoonis waxaan reer Buurdheer inta ku nool dhammaanka codsanayaa si kalsoonida beesha ii siisay inta kaloo deganna ay codkooda ii siiyaan markii la gaaro doorashada Agoosta taariikh 9 anigoo ah shakhsi halkan ku barbaaray una soo waxbartay baahideedana og kana dheregsan hadduu Ilaahay subxaanahu qaadirka ah caafimaad inagu gaarsiiyo kursigaasna inoo igmado Agoosta taariikh 9 waxaan reer Buurdheer u sheegayaa baahiyihiina nin garanaya haddaan ahay inta Ilaahay iga karansiiyo inta ugu badan aan ogahay baahiyaha inay biyo ugu horeeyaan inaan wax badan ka bedeli doono waxaan ognahay awaaraha jira inuu Ilaahay naga saaro awaara badan baa jiro Ilaahay ha naga saaro haddii kursigaas Ilaahay inoo ii ikmado waxaan ballan idinkaga qaadayaa ceel hadda inoo shaqaynayana ma lahan waryahaas noo qodan waxay ku xiran tahay raxmadda Ilaahay say u imaato biyari way imaataa awaarana way jiraan waxaan aniga Buurdheer u ballan qaadi ama bishaarka aan qaadan doono aan oga gado ama dakhli kale aan keeno inaan hooyada Buurdheer ay leeyihiin aan galo hooyada Buurdheer waan ay leedahay oo iyada u adeego oo cidda aanan ku lahayn oo xilliga awaaraha markay imaadaan standby ah inaan gadi doono digul baan ballan idinkaga qaado hadduu Ilaahay waxbarashada waxay tahayna og waxaan dhalinyarada anoo afkooda ku hadlaya u sheegayaa waxbarashada muhiimadda ay leedahay waan ogahay iskoolaadka halkan inoogu jiro waxbarashada ka jirtay hadda way wanaagsan tahay sarana waan u qaadaynaa kuwa wax dugsiga sare ka soo baxay ama secondary-ga ah
ooga haray sababa duruufo jira awgood inayna jaamacada aadin ama kolejyo iyo aqoon kororsi taashir ayna aadin waxbarashadiinni sidii walaalihii iga horreey baa idinku taakulayn jireen si ka wanaagsan annana inaan idinkugu taakulayn doono waxaan u mahadcelinayaa uqaasha beesha waxgaradka ganacsatada dhallinyarada haweenka intay iskugu jiraan oo dhammaan kalsoonida i siiyey anoonan ahayn shakhsiga ugu aqli badan dhallinyaradii hore u taagneed inay iga soo xusheen walaaladay ila taagnaana tanaasulaadka ay tanaasuleen qabiilka ay ugu danqadeen inay faataxa ka qaataanna waan u mahadcelinayaa waxaa kaloon u mahadcelinaya walaalkay iga horreeya cabdi aqwaan bagaay sida xilkaasnimada ah 5 sano uu u soo haayay markay u dhamaatana ka ogolaaday beeshiisa kursigii si nabad ah inuu ku soo wareejiyo aad aragtaan hadda aniguna aan saayada rabeeshi ugu soo xusheen aniguna biidnillaahi kariim haddaan noqdo shakhsiga kursigaas ilaahay u garan doon haddaan noqdo 5tan markay dhammaato sidii cabdi aqwaan uu u wareejiyey si la mid ah oon dhib ku jirin inaan soo wareejin doono hadduu alla idmo insha allah xaaladdan way adag tahay abaaraa jiro allah naga bixiyo taariikh 9 bisha 8aad buraha maalinkaas oo dhici doona waxaan hadda samaynaynaa insha Allah waa inaan macnaha ismuujino taariikhdaas maalin weyn ah aan isu soo baxno buraha aan si fiican u ridno dawladda aan dhisaynana mid annaga inoo danqanayso oo duruufaheena inoo adeegayso aan ka dhigano biidnillaahi kariim waanad mahadsantahay barakaatu reer Buurdheer ninka hadlaaya waa biya cabdi xuseen oo jeemaka Buurdheer waxaad waa mahadsantahay barsada ugu soo baxdeen reer Buurdheer aad baad u mahadsantahay tribka horada doorateen tribka ku xigtaan doorataan hadda waana dooranaysiin insha Allah ila goon kala baxsaneen oo reer Buurdheer wajees saad wax Allah wixii Buurdheer degan waxaan la soo baxnay maxamuud cabdi xasan afar wiil baa la taagneed afartii wiil faataxada ay tolka ka qaateen ay koo mahadsan ayagana khayr Allah siiya annaga oo beesha reer Sheekh Abdiyoonis beesha geli hoos ahaan beesha reer Sheekh Abdiyoonis waxaan soo qaadanay maxamuud cabdi xasan anoo jeemkii Buurdheer waxa la iga maanta tigiti qabiilka uu lahaa inaan u dhiibna ka Buurdheer maxamuud cabdi xasan inaan soo gelina ma doorta kama بسم الله الرحمن الرحيم aniga waxaa la yiraahdaa yarow cabdi wisaaq waxaan ahay chairmanka beesha geri koombe ee Gaarisa marka meeshan waxaan u imaaday inaan ka qayb qaato xafladan balaaran ee maanta beesha lagu hayo dadkii qabiilku wuxuu soo qaatay beesha geri koombe ee Buurdheer ninka la yiraahdo maxamuud cabdi xasan qaas ahaan qoyska reer Sheekh Abdiyoonis ayaa soo qaateen ninkii hore oo ku sii jiray khayr Allah si xalay buu soo wareejiyay ushii ee xilkii uu u hayay qabiilka uu ku soo wareejiyay afartina ninka la taagneedna faataxada ay qabiilka qaateen waxa la isku raacay maxamuud cabdi xasan waxaan ka codsanaynaa reer Buurdheer hadaa tihiin cid kastoo aad tihiin inaad ninkaan nala qaadaan oo aad noo soo gelisaan ayaa anigoo ah maxamed faarax guure gobolka degmada Buurdheer ka tirsan reer Sheekh Abdiyoonis dhammaan ummadda meesha isugu timid ee reer Buurdheer waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay in ay yacnaha ninka aan soo isku raacnay ee aan qaadanay in ay yacnaha nagu taageeraan kuulahana siiyaan iyagoo mahadsan oo si fiican noo soo dhaweeyey oo wiilkii nala qaaday in ay yacnaha wax allaale wixii aan ka codsannay inay noo dhammaystiraan dadka Buurdheer degan dhammaantood ward Buurdheer oo dhan baan ka codsanaynaa inay kuulahana siiyaan dhammaantood waad mahadsan tihiin tolka yacnaha arrimahaas baa yacnaha maarta isku raacay waxaan rabnaa in aad yacnaha arrintan u taageertaan waad mahadsan tihiin